tan iyo intii wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag loo soo magacaabay isuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag oo hore u ahaan jiray dhakhtarka howlgala cusbitaalka weyn ee Cergabo waxa soo baxay khilaafka iyo iska hor imaanshaha isuduwaha iyo dhakhaatiirta ka shaqeeya cusbitaalka weyn ee magaalada Cergabo waxaana ila wareejo lagu kalsoon yahay oo ka gaabsaday inay sheegaan magacooda iyo muuqoodaba ay sheegeen in haatan shaqada cusbitaalka Cergabo ay gabi ahaanba taagan tahay waa iskaga dareereen dhakhaatiirta iyo howlwadanadii caafimaad ee kala duwana marka laga reebo bay yiraahdeen mirar fara ku tiraysa oo walba iyagu hore deganaa cusbitaalka waxayna taasi fursad u noqotay bay yiraahdeen magaalada Cergabo ay ku soo badanayaan muddooyinka u dambeeyay cusbitaalada gaarka loo leeyahay ee laga furayay maadaama wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag iyo cusbitaalkii guud ee loogu adeegi lahaa bulshada gobolka Sanaag uu noqday mid albaabada u laabay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag haddaba maraanu booqanay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag iyo cusbitaalka guud ee magaalada Cergabo ayaanu kula kulanay xafiisyo xidhan iyo waadad maran oo ay beeshinka iyo shaqaalihiiba ka dareereen taasi oo markhaati u noqonaysa in albaabada ay u laabmeen amaba uu xidhmay cusbitaalkii bulshada caafimaadka daran loogu adeegi lahaa iyo wasaaradda caafimaadkuba halka isuduwaha wasaaradda caafimaadka ka mas'uulka ah oo arrimo shakhsi ugu maqan yahay gobolada galbeedka Soomaaliland isla markaana uu ka gaabiyay waajibaadka shaqada qaranka saaraa cusbitaalkii weyn ee magaalada Cergabo waad aragtaan xabari ka dhex dhaqaaqmayso halkan waa dhankan waxa weeyaan qaybta emergency-ga cusbitaalka weyn ee Cergabo waad aragtaa مسكيد وبابضح بحط واحد أحمر أنا عسبتال كعرق قبل محاول دنبيي قيبت هو قيبت الفرماسي واركان فارماسي وقرنا كاس وطا وقيبت العالم الفرماسي ويسك حريه ساعات وساعات الصبح عسبتال وطا وياه المسؤول من هو تبي يجي عسبتال كعرق بس أسود بيسي ما أنتي لسي لا ما أنت waxaasna waxa uu sababaha oo shaqaaluhu sheegayaan inay dhibaato ka taagan tahay maamulka wasaaradda caafimaadka oo noqday kuwa isku cuna duuba dhammaan shaqooyinkii kala duwanaa ee wasaaradda laga qaban lahaa lama garan karo halka ay saldhigi doonto xaaladda cusbitaalka iyo wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag balse shacabka gobolka Sanaag ayaa ka cabsi qaba inuu xidhmo cusbitaalka weyn ee magaalada Cergabo iyadoo taa bedelkeeduna ay noqonayso in danyarta la taag daran caafimaad darrada ay tagaan goobaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay barxad maxamuud geedi bulsho TV wararka gobolka Sanaag